Maxaad kala socotaa fadeexadii sirdoonka Mareykanka CIA-da ka qabsatay dalka yar ee Singapore? Fadlan walaal haddaad nagu cusub tahay, noo saar subscribe si aad noola socoto fiidiyoyadeena dambe aan soo gelin doono barteena aan ku leenahay YouTube-ka ee Guhar Production. Waxaa jira fadeexad caan baxday ee CIA-da Mareykanka ka qabsatay dalka yar ee Singapore kadib markii sirdoonka Singapore ay qabteen basaas u shaqeynaya CIA-da Mareykanka oo howlo basaasnimo ka waday gudaha dalka Singapore. Kadib xukuumadda Singapore ayaa basaaskii Mareykanka ay CIA-da u shaqeynayay ku xukuntay 12 sano oo xabsi ah. Washington ayaa markiiba iska diiday inay si naba ugu lug leedahay. Si loo cadeeyo fadeexadaas ayaa ra'iisul wasaarihii hore ee xilligaasi ee Singapore Mr. Lee wuxuu iskugu yeeray saxaafadda madaxa bannaan ee dalkaas isagoo dukumiintiyo sir iyo waxyaalo laga helay maxbuuskii la hayay ee sirdoonka CIA-da u shaqeynayay uu ku goodiyay in uu la wadaagi doono saxaafadda madaxa bannaan ee Singapore haddii uusan Mareykanka intaas goor tahay uusan ka laaban hadalkii dafiraadda ahaa ay ku dafireen inuu sirdoonkan ama basaaskan uu u shaqeynayay ayaga oo ka tirsanaa CIA-da. Kolkii ay xaaladdu halkaasi mareysay ee adkaatay ayaa CIA-da Mareykanka waxay weydiisatay Mr. Lee oo ah ra'iisul wasaaraha xilligaasi dalka Singapore inuu ku soo wareejiyo maxbuuskooda u xiran, taasi beddelkeeda uu qaato lacag dhan $3.3 milyan si qarsoodi ahna loogu soo diri doono ama loogu shubi doono account-kuu rabo. Mr. Lee ayaa iska diiday lacagtaasi wuxuuna ku tilmaamay inay tahay aflagaado iyo bahdilaad. Washington ayaa ku qasbanaatay inay qirto basaaska inuu ka tirsanaa sirdoonkooda CIA-da iyo weliba dukumiintiyada la hayo inay yihiin kuwa xaqiiq ah. Waxaa arrintaasi qirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ee xilligaas uu ka ahaa wasiirka Dan Rush oo warqadda raaligelin ah u diray ra'iisul wasaare Lee isagoo yiri way adag tahay in aad gadato ama aad iibsato bulsho isku xiran. Ra'iisul wasaare Lee waxa uu maalinkaasi jeediyay khudbad taariikhi ah oo dhagaha CIA-da ilaa iyo maanta ka dhex qaalinaysa. Ra'iisul wasaare Lee ayaa wuxuu yiri Mareykanku waa inuu fahmaa nooca dadka uu la macaamilayo ee jooga Singapore. Dalkani madaxdiisu ma ahan sida NGO ama Koonfurta Kuuriya. Dalkani ma ahan iib. Intaasi wixii ka dambeeyay dunida waxay Lee u qirtay inuu yahay aabaha Singapore. Singapore waxay tirsiga dalalka ugu dhulka yar adduunka kaga jirtaa kaalinta 177. 1960kii Singapore waxay ahayd magaalada qashinka iyo fowdada. Bulshada ku noolna waxay badigooda ku sugnaayeen jahli, faqri iyo musuqmaasuq. Balse sanadkii 1965 ayaa wax walba iskuna bedeleen geesta kale. Sanadka ayaa loo aqoonsaday bilowga taariikhda casriga ah ee Singapore maanta. Waana mid laga baran karo taariikh weyn sidii meeshii ay ka imaaday shalay Singapore maanta ah.